magaalada muqdisho afarta koonaba waa laga taagan yahay si aan ugu sawiro shacbiga Soomaaliland ma garanayo aan ahayn ilaahay kuma kaaro kuma maakume waa nin aw barxadle laga fadhiyo oo toon laga fadhiyo oo degmada abaarsa laga fadhiyo oo geedebliye Daar es Salaam laga fadhiyo afarta dhexdooda ku jira oo la xamar baan qabsanaya aqliyadu horta waa taa wuxuu jawaabayaa madaxweyne caawa hadduu halka ka lugeeyo oo uu ilaa laas qoray socdo keligii aan cid la hadlaynin oo hadduu galbeed u socdo ilaa saylac lugeeyo meeshuu doono seexan kara ninkaasi uu hanjabaya marba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ku kulmay guul weyn oo Masri ah oo soo hoyatay iyo rag uga yimi ardul Xabash dabadeedna wuxuu yidhi talo ma wafdiga Jacfar baan ku farxaa mise Nasriga ee beynasiiyey ma aqaan ma waxaan ku farxaa aqoonsiga aynu helay ma waxaan ku farxaa dadkaygii oo aanu muddo kala maqnayn aanu isu nimi ma waxaan ku farxaa magaaladeena adduunka ugu jeclaayay Hargeysa oo aan cagaa ku hayo way iga qasan tahay marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh mahadayba kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan soo dhaweyntan ballaaran oo uu hogaamiyey ama amray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo aan uga mahad celinaya halkan iyo xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo uu horkacayo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada gudoomiye Giire iyo xildhibaanadiisa golihii wasiirada aan ciidamo ka maqnayn xisbiyadii mucaaradka saddexdii ee labadii xisbi mucaarad ka iyo kulmiye iyo xisbigii weynaa xisbul xaakimka ahaa wadani dhammaan bahdii warbaahinta aan isleeyahay maanta Soomaaliland warbaahinba ma maqna dhalinyaradii Soomaaliland haweenkii culimadii madax dhaqameedkii ugu waaweynaa dalka ugu waaweynaa oo iyaguna maanta halkan jooga culimadii cid maanta maqan Soomaaliland qaybaha amniga ciidamada dhammaan halkan aan ka salaamaya waana uga mahad celinaya mahad kadib waxaan muddaan idinka maqnaa laakiin maan idinka maqnayna waan idiin maqnaa fariintayduna waxay ahayd mar kasta inaan dadkayga la dhibaatayn maanta waxaynu helnay wixii ugu weynaa ee aynu weligeen doonaynay oo ahaa aqoonsi adduunyadu waa 139 waddan waxayna diiday markii hore 129 waddan baa ina ogolaaday dalka ina ogolaaday waa inaa ogaataan ee dawladda Israa'iil inuu abaal idinku leeyahay waa inaa ogaataan wuxuu idinka soo saaray oo inaga soo saaray oo Soomaaliland ka soo saaray af libaax buu ka soo saaray god 12 baaca buu ka soo saaray aqoonsigaas gabaygii gabay xaddi wuxuu ahaa bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa ninkii buurta dheeriga la baxay habeenkiiba way biran lahaa bahalkii cawlaaye ninkii buurta dheeriga la baxay beerka ka ogsooni waa ognahay waa u abaal gudaynaa qalbigaanu ku haynaynaa kuwa meelaha wax ka soo xarxariiqana waxaanu leenahay maanta anagu buur baanu ku tiirsanay libaaxu waraabayaashu way ku ciyaan laakiin waxa ma yeelaan Israa'iil iyo Mareykanku waa libaaxiyo cidina waxa ma yeeli karto intaasi waa mahad celin 26 Disembarna waa inay noo noqotaa maalin maalmaha kale inooga duwan oo maaha jiilkeennanune jiilasha dambena ay ogaadaan maalintaasi qiimaha ay lahayd godkii ka soo baxay xaaladdu iyo aqoonsigu qiimuhu inoo lahaa aqoonsiga waa ogtii meydkeenni baa la cashuuraa oo waxaanu ka dagaalanay 9 meyda baan anigu rikoorkooda hayaa oo badhna la celiyey Yurub lagu celiyey badhna sabab lagu aasay sababtoo ah meydku markuu on arrival yahay lacag lagama qaado laakiin markuu baasaboor sito ee uu India ka imanayo ama Yurub ka imanayo waxa laga rabaa waa qof oo baasaboorka waxa laga rabaa fiisa qoladii meyd cashuurayaalna waxaan leeyahay waqtigii uu dhamaaday waxaan rabaa inaan ku daro laba qodob yar yar badin maayo waxaan arkayay
tiimkii xamar joogay oo ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud oo u soo hanjabayo Soomaaliland runtii waa ayaan daro saaxiib daar aclamu ma fiihi carabta tirada qofka gudaha guriga ku jira wuu og yahay waxa guriga dhexdiisa ka jira nin kale Soomaaliland baan ku duulaya iyo berberaan qabsanaya iyo hargeysaan weeraraya 7 tuulo oo reerkoodu dego 7 tuulo oo nuur dugle leh oo masaajid cali guduud leh oo magaaladiisa aadan yabaal leh oo raaga ceelo leh oo ceel baraf leh intaba inama yar 300 inaanu cagacado aan kaba sidan baa ka qaaday